Waxaa caawa la ciyaari doona mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee tartanka Europa League ka oo indhaha caalamka wada sugi doona inay daawadaan kulan final ah. Kooxaha reer London oo ah wajihiis yaqaana ayaa isku arki doona finalka Europa League sanadkan, iyagoo durba laba kulan ciyaaray horyaalka Premier League. Chelsea ayaa 3-2 kaga badisay kulankii Stamford Bridge, halka Arsenal 2-0 kaga badisay kulankii Emirates. Blues waxa ay qaaday Europa League markii 2-0 kaga adkaadeen Benfica sanadii 2013, halka Arsenal looga qaaday finalkii UEFA Cup sanadii 2000 ay la ciyaareen kooxda Galatasaray. Tababaraha Talyaaniga Sarri ayaa xilciyaareedkiisii ugu horreeyay leelinaya Blues kadib markii uu 3 xilciyaareed kusoo qaatay Napoli, halka uu 2 jeer ciyaaray Europa League halka marna Champions League, laakiin weligiis ma uusan u gudbin wareegga 16. Dhigiisa ay iska hor imaan doonaan kulanka 29 bisha ka dhacaya Baku waa Unai Emery, kaasoo khibrad badan u leh Yurub isagoo tababaro usoo noqday Valencia, Spartak Moscow, Sevilla, PSG kahor inta uusan tababar ka noqon Arsenal. Emery ayaa guuleysi Yurub la gaaray Sevilla isagoo koobka Europa League ku hogaamiyay 3 jeer isku xigta intii u dhaxeysay 2014-16. Dhanka dhaawacyada Chelsea war wanaagsan iyo war xun buu haysataa finalka. Markii ugu horreysay warka xun xidig khadka dhexe Robin Loftus-Cheek ayaa dhaliyay 4 gool oo Europa League ah oo ay dhaawac ku sheegi doona finalka. Dhanka warka wanaagsan, N'Golo Kante ayaa la filayay inuu taam noqdo kadib dhaawac khamiisii kasoo gaaray tababarka. Arsenal xidiga waaweyn ayaa ka maqnaan kara kuwa oo dhaawac qaba. Xidiga khadka dhexe Armenia Henrik Mkhitaryan ayaan u safri doonin Baku sababo ammaanka la xiriira maadaama colaad ka dhexeyso dalalka Armenia iyo Azerbaijan ka oo bilowday sanadii 1917. Garoonka dhexdiisa waa inaad isha ku haysaa labada xidig gool dhalinta kusoo baxay Europa League xilciyaareedkan. Waa xidigaha gool dhalinta tartanka Giroud oo 10 gool leh hogaaminaya weerarka Chelsea. Waxaa kula soo biiri doona Hazard oo gooladii u dhaliyay Blues soo saara finalka. Waxay u noqon kartaa kulankii ugu dambeeyay Hazard oo dhaliyay Blues. Giroud iyo Hazard wax badan islama haysan ciyaaran Europa League, laakiin markay soo wada saftaan waxay halis ku yihiin daafacyada Arsenal. Dhinaca kale, David Luiz iyo daafaca Chelsea ayaa u baahan inay la yimaadaan qorshe lagu guuleysan karo tartanka si ay u celiyaan Pierre-Emerick Aubameyang iyo Lacazette. Labada xidig ayaa dhaliyay dhammaan 7 gool ee Arsenal, labadii ka dhalisay Valencia ay ku jirto 3 Aubameyang dhaliyay lugtii labaad tartanka Europa League. Waxaa wada ahaan dhaliyeen 13 gool 7 caawin finalka 19 Europa League. Waxaa filataa goolal. Kulankan ayaa noqon doona kan ugu dambeeya labada naadi ay ciyaari doonaan maadaama safar dheer u soo galeen inay soo gaaraan finalka.